السلام عليكم. noloshan qofka qurahaata ee tahay inaad wehel ka dhigato mar walba ha noqdo naftaadu iyada ku huran mar walba adduunkan cid walba waa ka haraysa ama yani wad ha yimaado ama siyaabo kala dadka ku kala tagaan cid walba oo family xataa kuwa kuugu dhow waxa imanaysa in maalmaha kamida aad kala fogaanaysin ama kala tagaysin laakiin naftaadu yani wad hadii aad dhimato marka dee caalam kale uu qofku galaya oo waxa weeyaan nolol kale ayuu galaya laakiin adduunka intaad nooshahay cid kale ha ku kalsoonan oo aanan naftaada ahayn marna qof bini aadan haysiin cid doonaha ahaado waxa jirta mahmaah ingiriisiya oo tiraahda yani in xataa even sometimes markaad meel madow markaad gasho harkaagu xataa waa ka haraa naftaadu halkaada koobaad ilaahay marka laga yimaado naftaadu hela ku noqoto adiga oo ilaahay kaashanaya oo ilaahay wax walba wax yar wax weyn yani ilaahay wakiilanaya naftaadu ha noqoto qofka qura ee ku kalsoonaanaysid adduunkan marar badan waxaan aragnaa wallahi in يعني social media aad arkaysaa مثلا gabdho oo calaalaya oo yani ku ooyo oranay qof baa iga tagay qof baa sidaniya adduunkan adoo kaligaaya baa timiday adduunkan adoo kaligaana waad ka tagaysaa naftaada akhlaaqdaada mabaadi'daada iyo amalkaaga wanaagsani mar walba zaadka fiican ee adduunkan kala tagaysaa ku noqdo adduunka inta aad nooshahayna waa inaad taa aad ku dhaqantid amal wanaagsan akhlaaq iyo muxuu ahay dadaal joogta adoo ilaahay mar walba tala saaranaya marka naftaada ku kalsoonow hankaaga mar walba kor u qaad mar walba kor eeg wax walba adduunka way ku soo marayaan laakiin mar walba noqo qof haraw socda adayga lagu sheegay maaha yani inaad mar noloshaada aad taagnaatid oo marna ku fin maaha laakiin adayga lagu sheegay waa inaad mar walba kufto aad kacid aad waxa weeyaan boorka iska tirtid aad haraw sii socotid dhexda xidhatid adayga lagu sheegay waa kaas cid walba gabdhaha Soomaaliyeed iyo rag iyo dumarba yani awoodaha ilaahay ku siiyeen ku kalsoonaano wallahi waa muhiim adduunkan ilaahay haddaad haysato wallahi nood cidna u baahnayn cidna uma baahnayn nolosha wax walba wax yar wax weyn ilaahay la kaasho ilaahay la sheekayso ilaahay la hadal weelkaaga koobaad ha noqdo in wax walbana waa ku fudeydinaya dariiq walba waa lagu iftiiminaya dabcan imtixaanada adduun way iska jiraan oo waxyaabo badan baa ku soo maray waxyaabo aan adduunka filanay baa ku soo maray dadka qaar ku dhibaatoon aan filanay bay ku geysanayaan laakiin waxaas waa imtixaanada adduunka ka mid tahay taa maskaxdeena aan gelino ku kalsoonow naftaada waan igu celcelinayaa wehelkaaga koobaad priority-ga naftaada ha noqdo naftaada u roonow naftaada u wanaagsan waxaad jeceshahay samee yani naftaada ka warhay sid adduunka wax badan uga dabaalatid maskaxda caafimaadka maskaxdaada ilaali cid kastoo dhibaato ku keenaysana ama cid walba oo dhibaato ku keenaysana ka fogow ama noloshaada ka saar mar walba u heeli naftaada waa inta qurad naftaada ugu heelinaysid weey because caafimaadka maskaxdaadu waa muhiim weey caafimaadka maskaxda qofka bini'aadamka waa muhiim weey daaqad ka culus haysa saarin maskax ama muujad ka weyn haysa saarin kasla ilaahay wuxuu ilaahay kalifullahu nafsan illa wasaha ilaahay ba kuma culays kuma saarayo ama culays sanad qaadi karin kuma saarayo culays walba nolosha yimaado waa in qaadi karto weey wuxuu ilaahay ku saaray marka mar walba caafimaadka naftaada ilaali naftaadana ku kalsoonow ilaahay ku kalsoonow oo ilaahay number 1 ha noqdo noloshaada cibaadooyinka ilaahay sideeda u gudo waxna kaama xumaanaya because mar walba ilaahay xasuusato ilaahayna uu ku xasuusayaa mabda'aaga haddaad wallahi nolosha inta ka dhigato cidna kuma jabin karto waxa noqonaysaa bir aan la jabin waa taagnaanaysaa bir aan la jabin baad noqonaysaa because qof ilaahay haysta ma cid buu u baahan yahay maya